aan ku bilaabo ismarkaan ugu horeysiiyo wararka waaweyn ee dhinaca dunaasiyada caalamka oo dhan isla markaana aan ugu horeysiiyo wararka Soomaaliya ee ku saabsan dagaalka aadka u baahan ee u dhaxeeya kooxda Israa'iil ay la dirirayso ee loo yaqaan Hezbollah iyo ciidanka Israa'iil ee baqacaraya ayaa haatan waxa uu diiradda oo dhan ay saaran tahay sida Israa'iil ay doonayso inay u hesho gabaad inay ka dhigato ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay afayeen u hadlay kooxda loo yaqaan UNIFIL ee sheega in ay nabadda ka ilaalinayaan wadankaasi Lebanon ayaa haatan waxay qabaan inay xaaladdu ay sii xumaatay isla markaana ciidamadooda si dhab loo beegsaday kadib markii la sheegay in qaar ka mid ah askarta nabad ilaalinta ay ku jiraan kuwa dalka Tunisia weer lagu qaaday sidoo kale dalka Talyaaniga goortii hore sheegay in dadka la soo wareeyay ka mid yihiin kadib markii safaaradda u yeedheen afayeen u hadlay kooxda loo yaqaan UNIFIL ayaa sheegay inay dhibaato aad u xooggan ay jirto si kastaba noqotee ergeyga qaramada midoobay u fadhiya nidaamka saanuniyadda ee loo yaqaano Danny Town ayaa waxa uu sheegay in ciidamadaasi ay iyagu ayaan weydiisanay ayuu yiri in ilaa 5 kilomitir ay dib uga gurtaan aaga aan rabno sidaa daraadeedna wuxuu sheegay in arrintaasi khatar aad u xooggan ay socoto sayasha ku-xigeenka afayeenka ururka qaramada midoobay xogihiisa guud Farxaan Casiis Xaq ayaa sheegay in gabi ahaanba ciidamadaasi ay joogayaan bartooda ciidamadu waxay joogayaan bartooda sidaa daraadeedna Israa'iil ayaa doolaatay waxayna ka digeen taasi si noqonayso dhinaca kale waxaa la sheegay markii ay rushaysay Israa'iil isla markaana hubka artilleriga ay ku garaacday fadhiisamada ciidamadaasi inaysan jirin wax haba yaraatee digniina oo ay siiyeen ciidanka loo yaqaan Israel Defense Force ayaa la sheegay inay weer aad u tumaatina ay ku soo qaadeen maalmihii ugu dambeeyay ayaa Hezbollah soo taminaysay si aad iyo aad u xooggan wax loogu yeeray markaasi inay Israa'iil ay doonayso gabaad inay ka dhigato ismarkaana ku daba gabato ciidamada nabad ilaalinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska ayaa sheegtay inay si aad uga walaacsan tahay waxay ugu yeedhay rasaasta sida tooska loogu riday xarumaha ciidamada qaramada midoobay 4 saac ugu dambeeyayna ay jireen dad dhibaato ka soo gaadhay waxayna sheegeen in Israa'iil ay wali ka sugayaan faahfaahin ku aadan Faransiiska ayaa sheegay inaysan u dulqaadan doonin haddii khatar la geliyo 700 ee askari ayaga halkaas ka jooga Israa'iil ayaa darto eegta dhahadeeda iyo kibirka sankaroorka ee markaasi ay u muuqatay in marka dambeysay weerarada ay sii qaadaysan yihiin kuwa aad u sii darsanaya kuwaas oo marba u eeg in dhinacyada qaarkood ay sii soconayaan goortii horeysana qaar ka mid ah xubnaha dalalka reer galbeedka gaar ahaan European Union ayaa loogu baaqay in Israa'iil u sameeyaan xakameynta loo yaqaano in aysan jirin khadka cas khad ahmar ama waxa loo yaqaano markaas red line taasoo la sheegay in gabi ahaanba aysan ahayn in ay u ogolaadaan in nidaamka sameeyadu soo kala siismayo hase yeeshee daqiiqada kadib markay ka falxalatay Israa'iil duqeyntii saacada kadib ayaa xalay oo dhan goor dambe waxay garaacitaan aad u xooggan ku sameysay bartamaha magaalada Beirut ee xarunta waddanka Lebanon halkaas oo la sheegay in garaacitaanka ay sameysay uu ahaa goobo markaasi ay ku dumisay deegaano aad iyo aad u waaweyn wararka qaarkood ayaa sheegay in xaafadda Bachura ay ku badan yihiin dadka Shiicada ah ay saacadii ugu dambeeyay Israa'iil ay si aad u xooggan u garaacay kadib markii la sheegay inay inta badan dumisay xaafadda loo yaqaan Dahiya taasoo iyadu noqotay bartilmaameedka kooxda ee ugu weyn saanuniyadda ay markaasi ku bartilmaameedsanayaan saacadii ugu dambeeyay haddaba waxa isweydiin mudan ciidamadan qaramada midoobay ee jooga waddanka Lebanon waad u maqashaayeen maxay haayeen waa imisa askari maxay meesha ka qabanayaan ciidamadani marka horeysa waxa loo yaqaanaa ciidamada qaramada midoobay ee ku meel gaarka ee ku sugan Lebanon ama jooga Lebanon waxaana loo yaqaanaa luqadda Ingiriisiga marka laga hadlayo inta la soo gaabay United Nations Interim Forces in Lebanon waxaan loo soo gaabiyaa UNIFIL sidaa daraadeedna waxaa la aaminsan in ilaa 10,000 oo askari ay yihiin kuwaasoo ka yimid ilaa 50 dal oo dunida ah waxaa sii dheer intaas ilaa 800 oo qof oo shaqaale ah oo iyaga u adeegayaal ah ama u shaqeeya oo u qabta waxyaalaha ay u baahan yihiin ama dadka xukumo kamid ah waxay degan yihiin aaga xarunteeda ugu weyn waa aaga loo yaqaan Naqura oo la aaminsan in ay ku leeyihiin ilaa 50 fariisin oo kala duwan taasoo la aaminsan yahay in guud ahaan in uu yahay dhul gaaraya 160 square meter oo laba jibaaran ama meter isku laba jibaaran si kale marka mile ka dhigo waa 410 markaasi square miles ama laba jibaaran sanadka 1978 ayaa qaramada midoobay waxa ay ku baaqday in la meel mariyo ciidamada isla markaana ay noqdaan ciidamada wada ilaalina kuwaasoo ahaa inay ducduucaan qorshihii Israa'iil la doonayay in dalka Lebanon looga saaro tan iyo intaasna waxay ahaayeen ciidamo loogu talagalay aagaasi balse sida muuqata ciidamadan ayaa waxa la arkayay iyagoo dib uga baxay dalka Lebanon sanadka 1982 markii Israa'iil ay dib ugu soo kala jeereysay isla markaana bixitaankeedii hore 1978 ee ay Lebanon ka baxday ay ka haweyday kadibna dib u soo noqotay hadeerta waxa la aaminsan yahay in Israa'iil ay doonayso isla qorshihii 1982 oo kale marakan inay kala baxaan 18 sanadood kadib ayay markaasi u ekeyd inay dib ugu noqdeen haddana ciidamadu si kasta ay ahaataba ciidamada qaramada midoobay ayaa aad loo xoojiyay sanadka 2006
kadib markii loo ogaaday in kooxda loo yaqaan Xisbullah ay soo tartay awoodooda marka waxa loo arkay in la sameeyay aaga loo yaqaan Blue Line markaasna ay ahayd markii ugu badneed ee ciidamadaasi ay taageero aad u buuxa ay siinayeen wax loogu yeeray markaas nabadaynta aagaasi dad badan waxay u yaqaaneen ciidamadaas kuwa iska fadhiida oo aan macna badan lahayn haatanse Israa'iil ayaa saas ku dayle oo uga baxsalaayeen wasay warku sheegayaan mid kamid ah saraakiisha sarsare ee dalka Russia waxa uu sheegay in gabi ahaanba aysan doonaynin inay wax wada hadal ay la yeeshaan dawladda Washington waxaan la sheegay iyadoo la raadinayay maalmihii ugu dambeeyay oo dhan in si loo khafiifiyo culayska adduunka ka taagan in labada nin ay ugu sareeyay labada dal Biden intuu xilka ka tagin iyo kan Russia Vladimir Putin ay sarkaan balse sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Sergey Ryabkov waxa uu sheegay inaysan macquul ahayn ilaa iyo inta ay socoto siyaasadda nacaybka iyo waliba hubka ay sidoo kale waxa uu diiday in qorshaha loo yaqaan START treaty oo ah qorshe lagu xakameynayo hubka nukliyeerka aysan dawladda Ruushku qayb ka ahayn dawladda Ruushka ayaa sheegtay in gabi ahaanba aysan hadeerto ku qanci doonin waxa ka yar in la xakameeyo isla markaana la yareeyo xasarada ay yiraahdeen waddanka Ukraine ee lagu soo hubeynayo dawladda Russia ayaa dhinaca kale la sheegay in madaxweynaha dalka Ruushka uu dhawaan oo sheegay isticmaalka hubka nukliyeerka inuu joogo waqtigii ugu dhawaa in la isticmaalo si loo joojiyo falwaalida ayuu dalka reer galbeedka ka socota madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin waxa uu aaminsan yahay in isticmaalka hubka nukliyeerka ay ka horeyso diyaar garow sida daraadeedna ciidanka dalka Russia ayaa la arkay barihii ugu dambeeyay oo dhan ku bardoodamaya isla markaana ku soo bandhigaya gaadaka ciyaarka hubka nukliyeerka Ruushku waa dalka ugu weyn ee nukliyeerka adduunka haysta wuxuuna ka horeeyaa xataa dalka Mareykanka gumciyada hubka nukliyeerka qoomara waddankaasi waa 5889 markaasi gumc oo ku dhow adigu 6000 oo gumco wax yar dhiman waxaana loo arkaa gumciyadaasi hubka nukliyeerka inay koon ugu balaaran sida uu qabo Alex Malinini oo ah ninka macadka daraasaadka cilmi baarista Center for International Interaction and Cooperation wakiilka ka waxa uu sheegay inay iska caddahay in hubka nukliyeerka dawladda dalka Russia ay u tahay marjaceeda sida daraadeedna markasta oo ay marjaceeda ay u baahato isticmaali doonto Ruushku marka qaarkood ma doonayo hubka nukliyeerka inuu isticmaalo wuuna aaminsan yahay cawaaqib xumada ka dhalanaysa isticmaalka hubkaasi ee dadka bini'aadanka si kastaba ha noqotee laakiin marka la fiiriyo ciidankeena jawaabooyinka ay bixinayaan waxay u egtahay ku aad iyo aad u balbalaan maalmihii ugu dambeeyay oo dhan waxa la aaminsan yahay in dalka Ruushku uu xaqiijinayo gacanta sare xataa ilaa deerto wuxuu yiri waxa ma aysan soo kordhin hubka Mareykanku uu bixiyay marka laga herayo xogaa tortuura oo ay ku jirto diyaaradda F-16 sidoo kale ay ku jirto qaar kamid ah gantaalaha ridada dheeriga Atomic iyo sidoo kale kuwa kale oo NATO ay barihii ugu dambeeyay sheegaysay laakiin NATO ayaa waxa qabsaday in dagaal doona isla markaana uu sanka ka marmarayo dalka Russia iyo madaxweynihiisa waxa uu sheegay si kastaba ha noqotee dawladda dalka Russia in ay waagi hore ay qabtay siyaasadda ku saabsan anagu ugu horeeyayno ku hubka nukliyeerka isticmaala siyaasaddaas oo ah waxyaalaha yar yar ee kaliya ee uu ka soo qaatay ururkii burburay ee loo yaqaanay USSR ama midowgii Soviet si kastaba ha noqotee barihii ugu dambeeyay carabka noocaas oo kale uu bedelay madaxweynaha Russia wuxuuna ku bedelay hadallo kale oo kulkulul oo oranaya hadina la kaliifo waana la kaliifay hadina la kaliifana waana sameynana waxay tahay inaan sameeyno oo ka mid tahay inaan isticmaalno ayuu yiri ama xaadno dadka naga hor imaanayo oo aan u isticmaalno hubka nukliyeerka taasi waa khataraha dhinaca erayada waaweyn ay bixinayso madaxweynaha dalka Russia iyo kooxdiisa ogobi tani waxay ka dhigan tahay ayaa leeyahay marba marka ka dambaysa si socoshada dalabyada ku aadan isticmaalka hubka nukliyeerka oo qaar kamid ah kaadiriinta waaweyn ee madaxweynaha Russia la qabaan waxay ku tilmaantay inay qarka adduunka u saari doonto qalalaase aan cidna ka soo kabanin gaanka gaandunida oo dhammaashana qiimaha leh wararka waa caalam dhinaca dulansiinta ee haatan arrin la yaab leh oo mucjiso ah si kale marka loo eego qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay ama ay soo saartay warbixin laga yaxyaxay oo qaaradda Afrika oo dhan ka yaabasay hay'adda qaramada midoobay qaabsan caruurta ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku tilmaantay in wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya ee dunida loo diiwaan galiyay inay yihiin kuwa ugu badan ee dumarka caalamka saaran lagu kufsado taasoo markii ugu horeysay xataa ka badan sida la qabo ayaa la yiri wadanka Hindiya oo ayagu majraha u hay jiray kufsiga Hindiya inkastoo weli ay tahay marka fardi laga hadlayo wadanka koobaad laakiin marka laga hadlayo qaarad waxa lagu tilmaamay in gabdhaha yar yar meesha ugu badan ee lagu kufsado dunida ay tahay wadamada saxaraha ama sub-Saharan Afrika loo yaqaan wadamada saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika 79 milyan oo gabdhood ayaa la sheegay in lagu kufsaday wadamadaasi isla markaana waxa la sheegay in 79 milyan ee gabdhood lagu kufsado 5 daqiiqaba hal mar inkastoo arrintan ay dad badan ka argagaxeen isla markaana qaarkood ay ka xanaaqeen haddana waxa warbixinta ku qoran sida tan waa argagax isla markaana waa arrin terrifying waxay ereygaas loo isticmaalay ayay tii nan kali maqsuud oo ah
xubnaha dadka ka soo horjeeda ama dadka aad ugu taqaqusay qalalaasaha ka dhanka carruurta ee hay'adda UNICEF ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi xarun dalka Kenya waxaana tiri halkan waxaanu ku haynaa children oo argagaxsan aan fariirsan gabdhaha kuwaasoo la dala dhacaya ayay tiri aan fariirkii ay ka dhaxleen waxay ugu yeedhay xadgudubyada loo geystay kuwaasoo xataa aan iskuulka aan barakarin ayaan haynaa waxa ay sheegtay in adduunka oo dhan ay u muuqato in haween aad u badan la kufsaday marka adduunka oo dhan laga hadlayo gabdhaha yaryar ee la kufsado ayaa u badan ayay tiri haweenka waaweyn inta badan kufsiga lagulama kaco ayay tiri haweenka marka majuurka ama ku isgaarsiisan laakiinse inta badan wax la kufsanaya waa gabdhaha yaryar ama dadka ay Soomaalidu u taqaano foodleyda waxaana la sheegay in ay gaarayaan marka ay laga hadlayo ayay tiri 370 milyan oo gabdhood ayaa dunida lagu kufsaday waxayse ku tilmaantay argagax inay qaaradda Afrika dalka Saxaraha ka hooseeya intaas ay heleen ilaa 650 milyan oo qof ayaa la sheegay in ay ka mid yihiin dadka sida aadka xoogga loo kufsaday adduunka oo dhan waxaana ku tilmaantay in sidaasi ay muujinayso xiriirka aadka u xoogan qalalaasaha dhinaca gogasha ama qalalaasaha dhinaca jirka ee loo geysanayo dadka waa mid ka soo horjeeda bini'aadanimada ayay tiri madaxa guud ee hay'adda UNICEF ee Catherine Russell taasoo ku tilmaantay in waxa ay hayaan ay tahay xog laga yaqso mararka qaarkood carruurta waxa ay dareemaan in ay yihiin kuwa laga tagay tusaale ahaan sababta ugu badanna waxay sheegtay in carruurta yaryar ama gabdhaha saayidka u yaryar in la kufsado ay u qooleen waalidkood sababtoo ah dad aysan hubin ayay kaga tagaan ama ay u dhiibaan ama ay u geeyaan taasina waxa ka dhalata tabiyo iyo xadgudubyo aad iyo aad u waaweyn si kastaba ha noqotay arrimahani waxaa lagu tilmaamay inay yihiin kuwii uga argagaxa badnaa ee qaaradda Afrika in dhaweyta laga soo sheego inkastoo wadamo badan ay ku jiraan liiska haddana qaaradda inay qoontahaan u hesho tirada dadkani dad badan waxay ku tilmaameen inay tahay arrin aad iyo aad u foolxun oo markaasi lagu tilmaamay arrin aan cidna aysan u dulqaadan karaynin ayaa leh tribalka wararka waxaa la dhinaca dowladda dunida dabashana qiimaha leh gaanka caalamka oo dhan bal aan fiiriyo dhinaca kalena dadka reer Lubnaan ee ku sugan wadankaasi Lubnaan ayaa waxa ay sheegayaan in ay gabi ahaanba xaaladooda dhinaca noloshu ay aad u liidato garan ku barakacay 1.2 milyan oo qof ayaa wadanka Lubnaan oo dhan waxana ay gudaha ku barakaceen waxana ay carreen sida uu sheegayo mid kamid ah dadka barakacayaasha oo Anthony Saad leeyahay waxa uu ku tilmaamay in barakaca aadka u xoogan ee kaga daran tahay inuusan garanaynin xataa haddii xabaddu biri istaagto meel uu ku laabto kadib markii uu sheegay in iska daasiga gurigiisii xataa guriyihii dariska hala dumiyay wuxuuna ku tilmaamay weerarada dhinaca cirka halkaas ka dhacay ay tahay dhibaatooyin aad iyo aad u xoogan Saad waxa uu sheegay inaysan dadkiisu qoyskiisu aysan garanay meel ku noqdaan isagu waxa uu sheegay in uu wadanka Kanada uu doonayo inuu aado ama uu dib ugu laabto laakiinse halkee Lubnaan lagaga noolaanaya ayaa wali isweydiin u baahan ayuu ku tilmaamay wuxuuna sheegay in dhibaatooyinka aadka u xoogan ee halkaas ka dhacay ay yihiin kuwii ugu xumaa ee abid la arko ayuu taariikhda wadanka Lubnaan Kenya Airways ayaa joojisay duulimaadyadii rakaabka ee magaalada Muqdisho laga bilaabo ayay yiraahdeen 14 bishan October 4 maalmood kadib soo la xiriira caqabadaha hawleed waxay ugu yeedheen warkan waxa shaacisay maareeyaha guud ee Kenya Airways iyo madaxa fulinta Alan Kilavoka isagoo warqad uu qoray xogiyaha guud ee wasaaradda wadooyinka iyo gaadiidka Kenya Maxamed Daqar 9 bishan October lagu arkay warqadaasi sabab la xiriira caqabadaha hawleed guddiga iyo maamulka Kenya Airways waxay go'aansadeen inay joojiyaan duulimaadka rakaabka ee Muqdisho taasoo dhaqan galaysa 14 October ayuu yiri Kilavoka oo warqad diray go'aanka wuxuu yiri kadib markii shirkadu falanqaysay xaaladda ganacsi hadda ka jirta Kilavoka wuxuu cadeeyay in go'aanka lagu gaaray danta shirkadda isagoo tixgelinaya caqabadaha ay ku wajahan tahay xaaladda hadda jirta Kenya Airways waxay codsanaysaa in la fahmo isbedelkan aan la filan karin ee laga yaabo inuu dib u celiyo horumarka wanaagsan ee ilaa hadda la gaaray ayuu yiri Kilavoka shirkadda diyaaradaha Kenya ayaa la kulantay tartan xoog leh oo kaga imaanaya shirkadaha diyaaradaha Soomaalidu leedahay kuwaas oo ay ka mid yihiin Freedom Airlines Express iyo Premier Airlines shirkadaha ayaa bixiyay xulashooyin dheeraad ah sida tigidhada hal jiho ah iyo ganaaxa oo loogu talagalay rakaabka aan imaan duulimaadka kuwaas oo iyaguna sakhiran marka loo eego shirkadaha Soomaalida ayaa la sheegay sidoo kale in tigidhka halka jiho ay u sameeyeen qiimo go'an shirkadaha Soomaalida ah kuwa ay si gaar ah u maamushaan dadka Soomaalida ayaa lagu tilmaamay kuwa aad iyo aad ugu xoogan dhinaca ganacsiga waxaana caan ku noqday inay si gaar ah ula qabsadaan rabitaanka shacabka Soomaaliyeed iyagoo marar badan u sameeyo jeer dhaaf rakaab badan ayaa ka fogaaday Kenya Airways sabab la xiriira siyaasadahooda sida ku qasbida dadka haysta baasaboorka Soomaaliga inay iibsadaan tigidhka laba jeer ah taasoo ka duwan dabacsanaanta dhinaca shirkadaha Soomaalida la'aanta dabacsanaanta ayaa ka dhigaysa markaasi shirkadda Kenya Airways mid aan tartan ku gali karin jidka u dhaxeeya Nairobi iyo Muqdisho hawada
hawada iyadoo shirkadaha Soomaalida ee leh ay kasbadeen taageerada sii kordhaysay rakaabka ila sare oo ka tirsan maamulka dowladda rayidka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in mas'uuliyiin horey u sii arkeen caqabadaha intii ay socdeen wada hadallada mas'uuliyiinta Soomaaliyeed waxay sharaxeen baahida loo qabo in Kenya Airways ay si fiican ula qabsato habdhaqanka safarka ee rakaabka Soomaaliyeed inkastoo mas'uuliyiinta Kenya ay ballan qaadeen inay gaarsiin doonaan walaacayadan mas'uuliyiinta Kenya gaar ahaan Kenya Airways ee Nairobi ilaha ayaa tilmaamay in isbedel siyaasadeed ee suurtagalka ay u baahan yihiin ansixinta guddiga shirkadaha sida daradeedna ay adag tahay marar badan inay si fudud u dhamaato si kastoo ay noqotaba dowladda dalka Kenya waxa ay sidoo kale diyaaradooda dhawaan lagaga cawday dhowr qorshe oo raacan ay ka mid tahay inay dadka ay dayacday taasoo iyaduna kor u sii qaaday amaan la'aanta intaana ka bixin wararka waaweyn ee dhinaca Soomaalida ku saabsan wararka ka soo baxaya shirkii ka dhacay ama shirka ka dhacay Asmara ayaa la sheegay in ay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Masar ay si aad u weyn u riixeen siyaasadooda ku aadan in go'doominta dalka Itoobiya loo bedelo ficil saadaradeedna madaxweynaha wadanka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku biiray kooxda kale ee markaas ku shirsaneed magaalada Asmara oo dib kaga yimid madaxweynaha wadanka Masar Cabdi Fataax Siisi wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalka loo yaqaan Eritrea ayaa markii dambe tafaasiil dheeraad soo saaray isagoo markii doona baahiyay warmutiyeed goorsi horeysay Yamani Gabriel Meskel ayaa in dhinacyada ay ka wada hadleen arrimo waaweyn markii dawladda multiyeedka waxa lagu sheegay in la isla qoondeeyay la isla falanqeeyay arrimaha gobolka ka taagan oo ay ugu horeyso ayaa leeyahay xakamaynta faragelinta iyo sidoo kale ilaalinta gobonimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed taasoo lagu tilmaamay in dhulka Soomaaliyeed ilaalintiisa ay tahay muhiimad khaas ah warar aynu helayna hadaba ayaa sheegay in kasta dawladda dalka Eritrea wali aysan boqol taageersanayn in si dhaba dagaal loola galo dalka Ethiopia haddana waxa la sheegay in Eritrea ay u janjeerdo dhinaca Soomaalida ama dhinaca Soomaaliya Eritrea waxa la sheegay in Etoobiyaanka iyo Abiy Ahmed ay ku eedeysay inay ka baxeen heshiisyadii saddex geesoodka ah ee ay Soomaaliya soo jeedisay sanadkii 2018 kaasoo ahaa inaysan dalalku isfaragelin iyo in wax la wada qabsado in la yareeyo xasaradaha dhinacyada u dhaxeeya ee taariikhaha madow iyo in la duugo intii la duugi karayo taas balse waxa la aaminsan yahay in taas uu si halhaleela uga fududaaday oo garan baxay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa taas waxa loo arkaa mid aad iyo aad weyn labada hogaamiye waxay ka wada hadleen xiriirada arrimaha waxa la sheegay in kulamo gaar ay dhacday intii lagu guda jiray booqashada iyo sidoo kale inay dhaceen kuwa saddex geesood wararku waxay sheegayaan in dalka Masar oo iyagu aad ugu haliilaya arrinta isla markaana doonaya in meel la yaqaano lagaga soo haro dalka Ethiopia ay ka go'an tahay cadaadis kala saarayo hase yeeshee Masar marka ay noqoto ayaa la dhinaca in dagaal hadeerta lala galo dowladda dalka Ethiopia ayadoo diyaar u maaha waxay wararku sheegayaan inay doonayso wixii karankeeda inay abaabusho isla markaana isku dubarido dalalka Etoobiyaanka cadowga ah ee madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki inkastoo san hadeerto isagu wax khaas ah oo dhibaato aysan isku hayn isaga Ethiopia laakiin waxa la aaminsan inuu aad uga booday qaabkii oo la dhaqmay ra'iisul Abiy Ahmed iyo kooxdiisa ayaa la sheegay in ay ku ballan fureen sidoo kalena ay si aad u xun ay la dhaqmeen madaxweynaha Eritrea kadib markii uu hoosta soo gashaday wadamada reer galbeedka oo la isku ogaa in si aad u xogan la soo fogeeyo la soo cayriyo isla markaana aan la soo dhaweysan siday wararku sheegayaan tarbeelka wararka waxaa dhinaca diblomaasiyadda daawashana qiimaha badan gaanka gaandunida daawashana qiimaha leh dabaysha loo yaqaano markaasi hurricane loo yaqaano Milton ayaa iyaduna garaacday inta badan magaalooyinka iyo gobolada dhinaca koonfureed ee dalka Mareykanka iyadoo sir ah ayaa la arkayay oo si aad xoogan u raxamisa inay garaacid aad xoogan ay ku sameysay wararku waxay sheegayaan in dabaysha ay ahayd mid aad iyo aad u xoogan inkastoo la sheegay in hoos uga dhacday category ama meelayntii ay markii u horeysay ku qoondeeyeen qaar kamid ah qobarada dhinaca cimilada dadka kooban ee ku hadhay magaalooyinka gobolka Florida ayaa wararku waxay sheegayaan inay si aad u xoogan ay u dareemeen burburka guryahooda iyadoo ilaa iyo hadeerto ay dowladda Mareykanku ay sameynayso wixii karankeeda wax loogu yeeray olole aad u xoogan oo ay doonayso in ay dadka dhibaatadooda ay ku yareyso dhinaca kalena xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka ayaa wararku waxay sheegayaan inay aad uga cabsanayaan doorashada soo socota sida uu TV-ga CNN oo qoray waxa la aaminsan yahay in tan iyo intii madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka la soo saaray miiska Kamala Harris sidoo kalena Joe Biden laga saaray oo markaasi hor socodka waxay u muuqataa in ay tahay waqtigii ugu adkaa ee taariikhda ayaa leeyahay wararka qaar kood ayaa sheegaya in kastoo lacag aad u badan $100 milyan oo lacag loo rays gareeyay haweeneyda loo yaqaan Kamala Harris haddana wararka waxay sheegayaan inaysan cadayn mustaqbalka sida arrintu noqon doonto kadib markii la sheegay in si xira
ay ugu soo badanayso isla markaana kor ugu soo qaadmayso dhinaca kalena madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa aaminsan inuu isagu ku guuleysan doono jagada daqiiqada kadib markii uu ku dhawaaqay inuusan doonayn inuu haweeneyda mardan la murmo oo doodii adkeed ay dhinacyadu wada galaan ayuu wuxuu sheegay dhankiisa inuu u caddahay guushu sadarad wuxuu yiri maadaama anigu aan hogaaminayo guusha maxaan haweeneydan kala buuqaya sidaas ayaa laga soo xigtay Trump ayaa sheegay inaysan gabi ahaanba uusan la gali doonin wax hadal haweeneydaasi isagoo ku tilmaamay haweeneydu inay tahay naag sumba wuxuu sheegay inay tahay qof sumba nin kasto dhowr jeer uu sheegay maskaxiyan inay laacdahay ama maskaxda ay laacday ayaa bariyay ugu dambeeyay oo dhan waxa la sheegay in qaar kamid ah xubnaha xisbiga jamhuurigu inay dalbanayeen in gabi ahaanba haweeneydu waxay tahay lagu sheego taasoo ah ayaa la yiri inaysan ahayn qof maskaxiyan u dhiman laakiin ay tahay naag sumba wasa hadalka loo dhigay waxaana lagu tilmaamay inay tani tahay afrigadadii ugu weyneed ee uu hawada u soo mariyay wuxuu yiri markii uu horeysayba way iska cadeed ayuu yiri inay dagaalka ay lumisay sida daraadeedna haddana dib ay qofkii oo la ciyaar aad ka adkaatay maxaa kala ciyaari ayuu lama kala murmaya inkastoo la sheegay in doodii hore ay iyadu ku horumartay ama ay ku guuleystay laakiin Trump weliga ma qaran in laga adkaaday mana aaminsanaba in laga adkaa karo hatta doorashadii dhacday dalka Mareykanka ka dhacday 2020 wuxuu aaminsan yahay isaga in la khiyaanay laakiinse uu yahay dhigga guuleystay dhinaca kalena doodii maalintii dhaweeyay wuxuu aaminsanaa ee haweeneyda isagu ay wada murmayeen inay dhagaha wax ugu jireen oo dad ay meel fog ka hagayeen jawaabahana si talteel loogu sheegayay iyadoo meel kale looga eegayo وسو هذا الكوريجا لكن سوى عدنا هرتاس لو من الكريم لو أنا هيو مراكو أيها كمان كن أو قف أي أوضة صوت بسده دات كأرض جمع عضها أيها وإج إني مرة كان أي كأجود بتين عيدا كبغرطوية علاقات كلا إسرائيل تصبري وجود من يمدح حلوجات هنا دات كيا وحنا لقبق أيها إني مظاهرات ومركز ما يسكب الديران كوا بقرك كذا inkastoo la sheegay in ay dadka Mareykanka ahi aad iyo aad u yihiin dad degan marka laga hadlayo qadiyadka qaarkood laakiin the Palestinian Information Center ayaa goorsi horeysay waxa ay soo tabisay barteeda ay ku leedahay website muuqaalo muujinaya dadka oo kumanaan ah gaar ahaan ardada jaamacadda ayaa goorsi horeysay ururkooda ugu ballaaran ee loo yaqaano National Union of Moroccan Students waxa ay dalbadeen in la taageero dadka sidoo kale waxa la arkay iyaga oo ay dadkaasi ay sitaan sawirada hogaamiyaasha qaarkood oo kamid ah xataa hogaamiyihii geeriyooday loo jeeday Ismaaciil Xaniya halka sidoo kale Yaxya Sinwar ninka la holi waayay ee markaasi geesiga ay aad u amaaneen dhulka Falastiin waxaana ku tilmaameen inuu yahay geesi karab waayay waxaana la arkay iyadoo dadku ay sheegeen inaysan kala tagaynin tan iyo inta ay ka ogaanayaan tafaasiil ay kamid tahay in dawladda Morocco ay cilaaqaadka iyo xarkaha u goyso nidaamka sanadiyada inay qaado talaabooyin aad u weyn dawladda dalka Qatarna waxa ay ku tilmaantay inay khaladaadka ugu weyn ee sababta keentay inay Israa'iil ay wadan madax banaan oo kale oo Carbeed ay weerar ku qaado ay tahay waxa ka dhashay waxay ugu yeedhay kadib markii dalalka caalamka iska indhatireen in ay wax ka qaban waayeen xasuuqa ay ka wado magaalada Qasab wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee wadankaasi Lulwah al-Khatir ayaa waxa ay beesha caalamka ay ugu yeedhay in ay muhiim tahay in la joojiyo weerarka aadka u fooshaxun ee ka dhanka ah dalka iyo dadka reer Falastiin waxa ka haray iyo sidoo kale dalweynaha madaxa bannaan ee Lubnaan iyadoo tafaasiil dheeraad ka hadlaysay isla markaana la hadlaysay ra'iisul wasaaraha wadankaasi taagta daran ee Lubnaan Najib Mikati ee magaalada Beirut ay al-Khatir waxay tiri amba qadar markale iyo hoosta ka xariiqaysa in duulaanka ka dhanka madax bannaanida gobonimada iyo sidoo kale cisada uu leeyahay wadankan Carbeed ay tahay mid ay aad uga xun yihiin waxa ay sameynayaan nidaamka sanadiyada waxaana sheegteen Israa'iil ciidankeedu ay yihiin ciidan dolaar tag qabsadayaal sida daradeed ay doonayaan in dagaalka ay balaariyaan kana soo saaraan Qasa haddii beesha caalamka ay joojin lahayd isla markaana ay qaadi lahayn talaabooyin wax ku oolabay tiri markii ay burburinta aadka u xoogan iyo baabiinta ay ku hayeen dadka reer Falastiin ee Qasa waxa imaalahay hadeerto in Israa'iil ay joogsan lahayd laakiin Israa'iil waxa la siiyay wax loogu yeeray markaasi check cad ama markaasi warqad lacagta ee check loo yaqaan lacag ku qoran tahay taasoo bannaan oo ah waxa doonto aad ku qoro waxayna ka digtay in taasi si socodon waxay tiri dadka jamhuuriyadda Lubnaan waxay noqon doonaan kuwa taageero lixaad ka hela walaalahood ay tiri markaasi Qatar waxa ay haweenadu ay soo kala tafaasiil ka bixisay diyaarad nooca loo yaqaan C-17 taasoo agab aad xoogan siday oo ay ugu tala galeen dadka wadamada Carbeed ayaa lagu canaantay oo Qatar ay ka mid ka tahay dawladda Masar iyo dalal kale in waxa kaliya ay ka adageen ay tahay in xogaa shaxnado raashina keenaan xilli loo baahan yahay taageero lixaad la siiyo taasoo lagu tilmaamay mid aad weyn dalka loo yaqaan Ireland si aad u xoogan ayuu cambaariyay weerarka lagu qaaday ciidamada halkaasi jooga Ireland oo kamid ah wadamada ugu ciidamada badan ilaa 1000 askari ay ka joogaan ayaa ku tilmaamay inay tan tahay xayndaab jabin iyagoo ku tilmaamay inaysan aad iyo aad u ogolaa doonin waxan oo kale waxaana ku tilmaamay in weerarada noocan oo kale ay yihiin kuwa aad iyo aad u fool xun
aad iyo aadna u khaldan Israa'iil ayaa dhinaca kalena saacadii ugu dambeeyay weer aad xoogan ku qaaday xarun kaniisada oo aag loo yaqaan dalqiya waxaana wararku sheegayeen halkaasi kaniisad dadka lagu daweeyay sidoo kale gaar ahaan kaniisada loo yaqaan St George's Catholic ayaa la sheegay in weer aad xoogan lagu qaaday sida uu sheegayo baadariga leeyahay Maurice khuri oo madaxa markaasi kaniisadaas ayaa sheegay in halkaasi lagu dilay laba qof isagoo sheegay in ay gabi ahaanba tahay arin aad iyo aad u khaldan oo toos loola soo beegsaday kaniisada dadkii kaniisada ee u adeegayay dadka dulman ayaa halkan lagu soo weeraray Israa'iil ayaa lagu eedeeyay goobaha cibaadada ay si aad u xoogan bariihu dumisay u baabiinayay waxaana la aaminsan yahay in sharci darro aad u wanaagsan samaysay qaramada midoobay waxay ku dhawaaqday in iska caddahay in Israa'iil ay geysanayso dambiyo ay ka mid tahay xadgudub dhinaca qaramada midoobay dhinaca kale mid ka mid ah wakiilada qaramada midoobay oo la yiraahdo Andrew Tenanti ayaa waxa uu sheegay in iska caddahay in Israa'iil ay gacmaha sharciga ku sidato saadaradeed wuxuu ku tilmaamay weerarka ugu dambeeyay ciidankooda loo geystay inuu ka tarjumayo wax Israa'iil ay rabto taasoo ah in weerarada ay ballaariso dhinaca kalena xaafada dhinaca bari ee loo yaqaan Crack ayaa la sheegay dalka Lebanon in weerar aad u xoogan Israa'iil ay ka geysatay Israa'iil ayaa la sheegay in weerarkaasi ay ku dishay dhowr qof oo rayid ah waxaana la sheegay in weeraradeedu saacadii ugu dambeeyay oo dhan u meeqnaa oo ka inay iska caddahay waxyaalaha halkaasi ka dhacaya qaramada midoobay waxaa la sheegay in warbixintii ugu horeysay ka soo saartay dambiyada sanad jirsaday ee qasab soconaya ku tilmaantay inay caddahay in dambiyada dagaal waaweyn halkaasi ay ka dhaceen balse lama hubo in loo soo qooli doono nidaamka saanuniyada Israa'iil siday wararku sheegayaan gaanka gandunida wadashana qiimaha leh waa tarbeelka wararka caalamiga dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan aan fiiriyo qodobada wararka kalena ee wadanka loo yaqaan Masarna waxa lagu eedeeyay in ay si buuxda hadeerta ugu biireen dagaalka Suudaan Masar oo lagu eedeeyay in aysan Soomaaliya iyo cid kale toona wax u qaban karaynin hadii aysan dagaalka Suudaan wax ka qaban ayaa Mareykan waxa la sheegay sida uu sheegayo taliyaha ciidanka loo yaqaan kooxaha kan ee loo yaqaan Sudanese Rapid Support Forces ama RSF waxa uu ku eedeeyay dalka Masar inay ka dabeeyeen weer aad u xoogan oo lagu qaaday Maxamed Hamdan Dagalo oo loo yaqaan sidoo kale Hameti ayaa waxa uu sheegay in ay dawladda Masar oo adeegsanaysa ayuu bambooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka uu suubiyo ay weerar ku soo qaadeen aaga Jebel Moya kaasoo uu sheegay inay yahay koonfurta magaalada Khartoum halkaas oo ciidankooda deganayeen hadii Mareykanku uu gabi ahaanba usan ku raacsanayn in gantaalahan iyo bambooyinka noocan oo kala ah la adeegsado maysan dhacdeen ayuu dhin wadanka Suudaan ay soo gaadho wuxuuna sheegay in Masar ay nala dagaalameyso Masar dagaal bay nagula jirtaa wuxuuna gabi ahaanba ku eedeeyay in ay Masar ka mid tahay wuxuu ugu yeedhay 6 dal oo faragelin ku haya ayuu yiri wadankanada oo ay ku jirto ayuu yiri Iran markii hore Iran ayaan tagline oo diyaaradaha droneska ciidanka Suudaan siisay ciidanka loo yaqaan Sudanese Army Force ayaa la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay oo dhan ay gacanta sare yeesheen inkastoo ciidanka lagaga tagturroona dhinaca dhulka ayaguna dhinaca cirka ay xoogaa taageero haysteen haddana maalmihii ugu dambeeyay oo dhan ayaa la sheegay in ay dagaalku aad iyo aad u sii xoogaystay kadib markii dagaal la sheegay in wararku ay soo baxayaan haatan dalka Suudaan ayaa loo arkaa inuu ku sii dhacayo gacmaha kooxo isdiidan oo markaasi isku duldirri doona Masar way beenisay dhankeeda laakiin ay dagaalka iyadoo qayb ka ahayd waxayna sheegtay in gabi ahaanba iyadoo aysan cadeyna loo haynin sheegashada hogaamiyaha Maleeshiyaadka ayaa lagu sheegashada hogaamiyaha Maleeshiyaadka halkaas ka hilbadirraya isla markaana dadkii la dagaalay waa inuu keenaa cadeymo ku saabsan arintaasi dhinaca kalena dawladaha Saudi Arabia iyo Mareykanka oo iyagu dhexdhexaadinayay arrimaha ama qadiyada ayaa ka qoostay dhinacyada aaga loo yaqaano Jebel Moya waa aag istiraatiiji ah waana aaga ugu ballaaran ee caasimada ka kulaalaan kooxdu sidoo kale waxa loo arkaa meelaha ugu waaweyn ee saameynta aadka u xoogan ay kaga leeyihiin dhinaca kalena Dagalo waxa uu sheegay in Tigray iyo Eritrean Azerbaijan Ukrainian iyo kooxo kale ay dalka joogaan wuxuuna ku tilmaamay in la isku soo kaashaday wuxuu yiri kooxo Tigray ah ayaa iyaguna halkan joogo ka dagaalamaya halkaas wuxuu ku tilmaamayaa markaasi inuu isaguna doonayo inuu dhinaca kale u dumo oo Ethiopia meesha lagu casuumaya dalkii Suudaan markaas wuxuu noqday reer baawiya kale